gormadan waxaa qoray siyaasi aqoon-yahan Cabdisamed Kayse Maxamuud Indhutaag oo kamid ah siyaasiyiinta iyo haldoorka deegaanada waqooyi bari waxa uuna kaga warbixiyay xaaladda ammaan ee caasimadda waxaana qormadu u dhacaysay sida tan iyo markii la shaaciyay booqashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku imaanayo magaalada Laascaanood waxaa si nidaamsan u bilowday olole dacaayado been abuur ah oo lagu doonayo in lagu wiiqo amniga kalsoonida shacabka iyo sumcadda caasimadda waqooyi bari dacaayadahaasi waxay ahaayeen kuwa ay faafinayeen dhinacyo kala duwan oo kaashanaya dawladda shisheeye oo cadow ku ah nabadda midnimada iyo horumarka waqooyi bari iyo qarannimada Soomaaliya si kastaba ha ahaatee dhammaan isku dayadaasi waxaa si buuxda u fashiliyay taliyaha ciidanka bileyska dowlad goboleedka waqooyi bari oo sameeyay qorshe amni oo dhameystiran taas oo ay fuliyeen ciidamada bileyska iyo hay'adaha kale ee amniga ee dowlad goboleedka waqooyi bari taliyaha ciidanka bileyska waqooyi bari General Siciid Xasan Faarax runtii wuxuu hirgeliyay istaraatiijiyad amni oo ku dhisan ku duwid hay'adaha amniga ka hortag fal kasta oo u muuqan kara dambi iyo wada shaqayn dhow oo uu la yeeshay bulshada tallaabooyinkaas ayaa horseeday in si wax ku ool ah meesha looga saaro dacaayadihii cadowga lana fashiliyo dhammaan isku dayadii lagu doonayay in lagu abuuro khalkhal amni oo lagu carqaladeynayo booqashada madaxda qaranka muddo hal toddobaad ah oo ay Laascaanood isugu yimaadeen madaxda qaranka oo ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha qaranka mas'uuliyiin sarsare diblomaasiyiin caalami ah iyo 10,000 oo shacab Soomaaliyeed ah lama diiwaan gelin hal dhacdo oo amni darro ah hal qof lama dhaawicin qof lama dilin mana dhicin wax shilal ama falal lid ku ah amniga taasi waxay cadeyn u tahay guul amni oo taariikhi ah guushani waxay fariin cad u dirtay cadowga waqooyi bari Laascaanood waa magaalo amni ah bulshadeeduna waa mid bisil ayna ka go'an tahay ilaalinta xasiloonida iyo karaamada qaranka ugu dambeyn waxaan hambaliyo iyo bogaadin aan u dirayaa General Siciid Xasan Faarax iyo dhammaan saraakiisha ciidanka bileyska waqooyi bari iyo shacabka Laascaanood kuwaas oo si wada jir ah u muujiyay mas'uuliyad wadaniyadeed iyo feejignaan sare intaas ayuu ku soo koobay siyaasi Cabdisamed Kayse Maxamuud maqaalkiisan anigoo Maxamed Cismaan Cabdinuur ayaa idin socodsiinayay Nabadino sidoo kale waxaan hambalyo leeyahay guud ahaan ciidamada amniga ee waqooyi bari ee suurtageliyay nabaddan inaan ku xafladeyno oo aan ku dabaaldegno suurtageliyay maanta waxaan halkan ka cadaynayaa in waqooyi bari ay tahay dowlad goboleed xubin ka ah Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya